السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال waxaad ku soo dhawaataan gungaar anaga oo ku falanqeyn doono ama isdul taagi doono waayihii nololeed ee Idris Cabdullaahi Macalin oo al-shabaab ay u yaqaaniin Food Cadde kaasoo dhawaan isu soo dhibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasina muddo 7 sano ah u shaqeynayay ama la shaqeynayay al-shabaab Idris ayaa ka soo dagaalamay ama ka soo shaqeeyay gobollo fara badan oo dalka Soomaaliya kamid ah aan ku soo dhaweeyo barnaamijkeena Idris soo dhaw bal waxaad noogu warbixisaa waagi aad ku biirtay al-shabaab iyo meelihii kala duwanaa aad tagtay magacay loo yaqaan Idris Cabdullaahi Macalin oo naanaysta loo yaqaan Food Cadde muddo 7 sano ah ku jiray al-shabaab ururkaas oo qawaarijiinta ah nimankaas aan ku biiray deegaan la dhahay Mudug aan ka soo shaqeeyay hageed ugu biirtay marka al-shabaab adig al-shabaab waxa ugu biiray meel la dhahayo Bush Madiina oo ugu biiray meesha dhibo aan ku jiray waa laga qaaday waxa la geeyay Saakow u dhaas iyo Bu'aal meel u dhaas meeshana la geeyay meesha muddo hadda 5 bilood ah aan ku shaqeeyay 5 bilood markii aan ku shaqeeyay meesha naga soo waday waxaan la keenay yag barawe meel la dhahay aanana keen ka bacdi yag bara markiina na keenay meesha muddo 2 bilood oo duur ah aan ku jiray muddo 2 bilood duur meesha aan ku jiray meesha tuuti aan loo keenay ka bacdi meesha hadana loo keenay gaariyal mudug loo qaaday mudug markiina na geeyay meesha shaqada aan ku bilaabo meesha shaqa aan ku shaqeeyay kulay meesha dagaal aan ku galay muddo oo waxaan joogay meesha anoo 2 sano joogay ka bacdi markaas dagaal oo niman macsuuliin dhahay dagaal meesha aan ku galay oo mudug ka dagaalama mudug ha ka dagaalama oo iyo nimanka ahlu sunna iyo isku jiraan ciidamada dawladda meesha dagaal ku galay meesha anoo dagaal ku galay meel la dhahayo dabagal la dhahay meesha dagaal ku bilaawday niman Saleeman la dhahay iyo ururkan al-shabaab oo qawaariinta ah meesha dagaal ku bilaawday meesha dagaalka markii ku socday ka bacdi dagaalkii al-shabaab waxa marka nimankii oo ordan ka bacdi al-shabaab ka bacdi nimankii oo masaakiinta ah xoolahooda ku kaceen sheekadaas oo u soo noqon doonaa waxaan isdul taagaynaa bal ka hor intaadan ku biirin al-shabaab yaa kugu dhiirigeliyay oo kugu tashkiiliyay adig la dhahayo Maxamed la dhahayo ay u dhiirigeliyay ninkaas waxa lagu duqeeyay Bush Madiina nin maalid ah oo logistikada u qaabilsan nimanka wax aruuri u qaabilsan ninkaas ay u dhiirigeliyay ninkaas Bush Madiina lagu duqeeyay muxuu ku sheegay marka muxuu ku tashkiiliyay waxa ugu tashkiiliyay niyow jihada jir ogaanteed lahaw ay u dhahay markii aan arkay kulay meesha inaan jihad ka jirin oo umada oo lugumaada oo aan ark marka adiga markaas maxaad ahayd qof ganacsi ahayd qof wax bartaa ahayd hageena joogta aniga waxaan joogay Burakabo waxaan ka shaqeey jiray mar garaash mid adeerkii aan garaash ka shaqeey jiray anoo garaash ka shaqeey jiray waxay dhahan niyo garaash waxaas ka bax lamakan ku soo bir hagee joogay isaga markaas ma buru joogay mise meel asiga waxa joogay bisig cadde maalidka ahay meesha joogay oo lacagaha zakawaadkii waxyaabo soo aruurin jiray lacagaha zakawaadkii maalidii waxa soo aruurin jiray maxaad ka haysatay fikir marka al-shabaab xilligaas kulay al-shabaab waxaan ka haystay inaad diin wadaan ka haystay laakiin markii arkay inaad diin wadin meesha ay soo dhaxbaday oo ummad la gumaaday oo xoolada dhacayo dadkii la qalay meesha lagu qalay oo diinta la ilaaha soo qof ku hay la qalay qof la qalay wiliga ma aragtay waa arkay hagee ku aragtay waxaan ku arkay dagaal ka dhacay caad ka dhacay aan ku arkay qof la qalay qof nooceeb ahaa ninka qof oo dhaawac ah meesha lagu biray dagaalku ku dhaawacmay meesha ku biray marka waxa way qofka waxa dareemi kartaa qofka inaad diin wadin oo magta qofka la ilaaha ku hay inaad la qala diinta islaamka ma banayno magta marka kulay waxay gashay marka inaad diin wadin oo magta waa iska dareemi kartaa magta kadib marka Bush Madiina tagtay adiga ninka saaxiibka kugu tashkiiliyay kadib maxaa dhacay ninka saaxiibka igu tashkiiliyay ka bacdi waxa la doorashada loo wadaa la Bush Madiina meel la geeyay sidii ayagoo badan meesha lagu duqay ayagoo oo maalid badan oo la soo oro gobolada badan laga soo oro 9 gobol laga soo oro meesha lagu duqay kadib maxaa dhacay marka maxaad sameysay adiga hagee aaday
yaa ku soo dhaweeyay yaa shabaab kugu hayay ani shabaab waxaa igu hayay nin la dhaha jiray sahal la dhaha jiray amiir oo ahaa jiray oo hadda bay bakool loogu dhigay amiir ugu dhigan al-shabaabta ugu dhigan ninkaasaa la shaqayn jiray buush madiina tagtay kadib hagee aaday marka hagee lagu tababaradan hagee kusoo qaatay tababarada waxaan kasoo qaatay bu-aal isaakow meel u dhexeyso iyo boosha jawaari lalahay meesha tababar kasoo qaatay meesha tababar ku qaadanay muddo adiga oo waxaan ku jirnay 5 bilood ah meesha tababar ku jirnay si fiican kadib hagee lagu soo bedelay kadib waxaa lii soo bedelay waxaana keenay meel la yag baraaway gaariyaal noo imaadan nin la jiray suldaanka la jiray meeshaan ku kulan oo 9 ku gulay haasta oo al-shabaab 9 ku gulay oo u dhastay Soomaaliland meesha tuutan noo keenay ka baadin nin la hay Abu Qaalid la jiray oo al-shabaab oo u shaqeeyo mudug laga soo bedelay aniga nana geey marka deegaanka la idin geey muxuu ahaa markaas taariikhdana ma xasuusta xilliga oo mudug la idin geeyay ma xasuus taariikh ma xasuus xilliga meesha nana geeyay adiga aniga oo adiga 100 qof nahay meesha nana geey lana la jiray waxa noo imaaday Abu Adnaan la dhaha jiray imad la dhaha jiray Nuur Dhal la dhaha jiray iyo nin shaal katiin la dhahay asagana oo daawad u qaabilsan al-shabaab u qaabilsan meesha nana geeyay waana na feeliyay waana la qaybay marka qayb waxa laga dhigay caada la geey qayb waxa la geey duma la geey qayb waxa la geeyay dabagalo qaybna waxa la geeyay hardheer oo ana qolada fursaanta lagu daro fursaanta noo macnay bal fursaanta waxa weeye fursaano kullee hadii waxaan ka maqlay ururkaas al-shabaab fursaano xisbo macnaha xisbada ala shaqeysa fursaanta gurmada hadii la dhahana meeshii gurmad la waa lagu daro oo weerar hadii la gurmad ujeedada waagaas la idin geeyay mudug maxay ahayd ujeedada waagaas loo geeyay mudug waxa weeye inaan meesha ka shaqeyno oo kullee shaqo aan qaban aan loo geeyay kadib ma jiraan wax dagaal ah oo dawladda iyo u dhaxeeya al-shabaab oo adiga aad ka qayb qaadatay aniga waxaan ka qayb qaatay mar dagaal noo qaaday isgoos meel la helana geeyay anagoo badan meesha nala geeyay ilaa eelhuur nala geeyay nimankii meesha dhufeys u galnay kami u galnay waa soo gal waay qadku waa soo gal waay yaa ahaayeen nimanka aad dhufeys u gasheen nimanka dhufeys nimanka dawladda oo galmudug iyo kuwa oo isku jira bangara meesha waa soo socdaan la ayagoo 40 baawar ah waana wadada u galnay wadada markii u galnay nimankii qadku waa soo gal waayeen waa baxnay eelhuur aan la geeyay eelhuur shirkadda meeshii wixii alaab ah shirkadda taale shirkadda hormuud waxaa laga soo qaatay beesa $150,000 meesha al-shabaab ka soo qaatay iyo macalkaarar badan oo juwaano badan meesha ka soo dhacay al-shabaab markii dambe meesha markii 9 saac markii taa meesha aan joognay waa naga soo qaaday isgoosana na keen isgoos markii na keenay kaararkii aan noo qaybay kaararkii hormuud macnaha kulli kaararkii markii noo qaybay ninba ku shubtay waxba kuma jiro lacagtina ayaga qaateen lacagtii meesha laga soo qaaday kaararkina faaruq waa marka dhacdaasna waan ka arkay marka dagaalkii nimankii aad sugayseen qadku way soo gali waayeen waa soo gali waayeen kadib maxaa dhacay kadib waxa dhacay meeshaan joognay aan noo imaaday nimankan khawaarijinta al-shabaab noo imaadan nin oo meesha ayaga daaw ahaa jiray imaaday meesha maharo noogu jeeday feelan la geliyay maharo meesha noogu jeediyay ka bacdi meesha anay fasaan ka soo qaaday horta halgan ali keen halgan hagee ka tirsanta halgan waxa ka tirsan tahay hiiraan ka tirsan tahay halgan ana keenay ka bacdi soo bax xaafadii ay imaad okay shabaab muddo 7 sano ayaad la shaqeynaysay oo aad ka tirsaneed xilal ma jiraan aad qabatay oo shabaab gudihiisa aad ka qabatay xilal aan qabtay waa jiraan mar waxaa jiray furahaay in badan ahaa jiray 3 sano furahaay jiray oo maxbiis ah hagee joogtay markaas waxaan joogay Hardheer aan furaha aan ka hajiray magaalada Hardheer furaha ka hajiray dad oo la soo xiray jaad laga soo qabtay oo qori iyo boosh ku xukum qof oo sigaar xabba sigaar hadii lagu arko boosh lagu soo xukumay iyo qof oo meelaha laga soo qabtay oo jaad iyo wax laga soo qabtay la soo xiray oo xabahaasina masaakiin oo hay dad oo dhul isku dagaalo ayagana la soo qabtay meesha ku jiraan oo muddo oo 8 sano oo ku jiraan xilkaas muddo intee sano haysay muddo 3 sano aan furaha jiray okay maxaa kale mar tali anigu aan ku naqtay anoo dabagalo lii bedel marka kale tali anigu meesha aan ku ahay
marka shabaab intaad ku jirtay waxyaabaha kugu yaab badnaa aad la kulantay maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu yaab badnaa shabaabkaas waxaan ku arkay ninkii qabiilka dagaalkaas la gal sumadiisa oo qabiilkaas oo dagaalkaas howlahooda waa qaniima u aaminsan yihiin waa qaniimasana nin masaakina waxaa laga yaabaa dagaalkaas inaan ku jirin oo shaqul waxba ku helin waxaa lagu leeyahay qaniimo xoolahaas qaniima u qaadin lagu leeyahay dukaankiisa iyo hantidiisa iyo waxyaalo badan oo meesha ku jira oo xoolahooda soo qaniimisa dad masaakin ah dad baraagtooda waxaa arkaysa digir lagu shubay oo baraagta digir marka lagu shubay boosnara waa ka ur badan waxyaalo badan ala fiiri kana meesha ka muuqato adiga marka dadkii lala dagaalamayo ma qabiil ahaan bay u arkayaan mise tusaale ahaan dawladdiiba dagaal kala dhexeeya al-shabaab marka maxay tahay qabiilkaas oo iyagu ay beegsanayaan qabiilkaas waxaa u beegsanaya nimankaas waxaa weeye mataqaanaa sakaawaadka sanadkaas saleemanka sakaawaadka waa diiday sakaawaadka xoogaa looga qaatay gumaad aa looga qaatay dadku dad masaakina iska jira dad waxaa arkay laba neef iska haystaan oo iska daajisana markaas waxaa leeyahay qabiilkaas noola dagaalamay waa isku mid nimanka macuusleyda ka waran dagaalkeeda dhex mari jiray nimanka macuusleyda dagaalkeeda al-shabaab in badan horta waa ka boorisay qof badan laga dilay al-shabaab dad oo aqaano oo badan laga baabi'ay al-shabaab oo waxaa weeye nimanka macuusleyda al-shabaab horta xabadooda u fiirsa iskama tuura waa iska tuuraya magta nimankaas fartaada waa liishaa macuusleyda niman tababaran oo si fiican u garanaya shiishka waay shiishka u yaqaana wey maxaa kale shabaab marka inta badan ay ka baqaan markay joogaan meelo oo iyaga ay xukumaan dawladdan aan ka dhaweyn ay joogaan ciidamada inta badan ay ka baqaan ciidamada inta kale ka baqaan horta bangaraafta waa ka baqaan mideeda kalena waxaa ka baqaan dronist waa ka baqaan diyaaradaha dronist waa ka baqaan horta meesha waxaa weeye mataqaanaa nimanka horta habeenta ah meesha ku baaba aqlina ma lahan qofku waxaa fiican magta inaad fikiro oo xisaabtamo hadda somaliland tan diris tahay puntland diris tahay dagaalka qarax waa ka dhaca dagaal waa ka dhaca somalilandna kama dhaca wadanka soomaaliya hadda oo habeenta u badan dagaalka dagaalama u badan wadankoodaa la burburinaa somaliland tan waxaa weye dagaalka ma dhaco oo waxaa weye ninka al-shabaab ururka u tali meesha ku dhashtay hal haba kama dawladana ka dhisan waa xornimo wadankooda waa la burburinaa ma fiirinayaan wadankooda la burburinaa oo ayna lagu shaqaystaa qofku waxaa fiican inaa xisaabtamo qofka haddii xisaabtameen mogta waa waxba maaha waa u soo noqon doonaa su-aalahaas iyo waxaan rabaa inaan isdul taagno aan wax kaa weydiiyo waxaan aragnaa nin isqarxinaayo oo lasoo tashkiiliyey oo shacabkan isku qarxinaayo ama meel askar ay joogta isku qarxinaayo see qofka looga dhaadhicinayaa qof nool inuu isqarxiyo qof nool inuu isqarxiyo waxaa lagu dhaadhicinayaa qofka koow waxaa leeyahay ilaahay dartiisa ma isku qarxi kartaa qofka waxaa leeyahay janaag geliya 72 xoreen hal jannada haddii gasho 72 xoreen jannada ku diyaarsan ilaahay dartiisa u qarxiyo ku leeyahay ninka adiga saas ku leeyahay waa nin adiga amal ah waxba kuma dhaam qofka magta dad jaahila iska jira magta waxba aqoon markaas waxaa leeyahay anaa isqarxina gacanta taagaya waa la wadaa jubbooyinka meelahaas la geenaya muddo oo hal sano ah dowlad oo lagu tashkiilinaya qofka asoo baraf ah meesha laga soo saaray markaas waxaa leeyahay gaari loo dhiiban waa loo buuxinaa waa isqarxina waxaa loo sheegay in qofka markii loo soo cilaamiyo ama la faro inuu soo qarxiyo asxaab kale la daba dhigayo isaga uusan marnaba qaraxaas aan iska furi karin waxyaabaha laga sheekeynaya badan haddii aad wax ka og tahay marka qaraxan markii la fulinayo oo kale intee qofood camal lagu fuliyaa qarax markii la fulinayo adi muddo oo 3 qof ama 4 qof oo qof kala shaqeyso waxaa la diidaa marka magta qofka bini'aadamka shaydaan la xiriir magta inaa boqol la diidaa magta ama go'aanihiisa uu ka laabto go'aanihiisa qaato dad badan aragnay oo meesha la geeyay oo markii dambe soo laabtay oo diiday marka waxaa diidayaan qofka inaad go'aamihiisa ka soo laabto qof dadal daba dhicina marka sidaas ku warxinaa qof marka nimankan kale uu ka baqaa marka mar walba inuu isqarxiyo waayo nimankaas ka baqaya niman soo lagu tabjira oo meesha busoo wataan asagna qalabkiisa loo soo xiray gaarigiisa loo soo buuxina waxaad iga warantaa al-shabaab ka waran magaalooyinka iyagu ay ka howlgalaan ama mishinada ay ka fuliyaan dad jaajusiin ah oo iyagu la shaqeeya u fududeeya ma jiraan magaalooyinka waaweyn jooga ku jira al-shabaab waxaa waye meesha ayaga dagaal ka qaadi rabaan qof jaajus ah adeegsanaya jaajus la'aan meesha kama galaan
waxyaalo badan arkay meel kale oo ayaga ogolaan deegaan oo galaan oo ayagoo macluumaadka loo soo gudbin deegaanka kuma weeraraan dad badan adeegsan mar walba marka dadka deegaanka dad badan oo iyagu la shaqeeyaa jiro dad badan waa jira dad badan ay la shaqeeyo ama ganacsato ahaadan waxaa weeye mataqaana waxaa mu'askarka noogu tababaray macnaha qofka haddii asiga mogta oo meelo magaalooyinka la geynay amniyaadka lagu dhahay asoo saatir lehen amni ma naga karaa ku leeyahay saatir waxaa yani waxaa weeye saatir asoo dhufeys lehen dhufeyska waxaa laga wadaa asoo ganacsi loo sameynin oo magaalooyinka ka shaqaysaneen ma naga kara macnaha saatir saasaa lagu wadaa marka saatirka waxa weeye kuwa mishinada fuliya dilalka qorshaysan miya magaalooyinka jooga ma malayn shacab u malaysaa saatir holna way wadaan hooshada waa ka wataan waxyaalo badan oo askariga nagu soo sii ka mid ahayd marka tii qarxiyadii iyo dadka la tashkiilinayaan ku laabanaynaa dadka marka waxaad sheegtay inaysan ahayn dad diin ku filan haysto aqli ku filan iyo aqoon ku filan aan haysana la tashkiilinaya sax marka kadib markii la soo tashkiilo maxaa dhacaya dadka la soo tashkiilay qof wax aqoonin oo jaahila iska jir waxaa